habeen hore ayay ahayd markan halkan fariin uga diray qurba joogta reer Puntland ee ku sugan daafaha dunida shalayna waa iyadii madaxweyne Dani hadlay waxaan rabaa halkan inaan idin kula wadaago xogta dhabta ah oo xaqiiqada ah madaxweynaha waa kaasa tuutiisa u xiran dagaalka waa ku garab istaagaynaa sida muuqata nimanka la dagaalamayo qaabkii ay noqdeen iyo qaabka ma taqaanay ay reer Puntland shirqoolada ay u maleegayaan waa wax aad kaafiye kala dheeri ah qaabkii markii hore la filayo iyo qaabka hadda loogu tagay waa wax kaafiye kala dheeri ah waxaan rabaa halkan inaan dawladda fariin uga diro waliba laba fariin uga diro qurba joogtana fariin u diro culimada reer Puntland fariin u diro waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalkan fogeysaan oo gaarsiisaan oo meel kasta ugu turto waa waajib saaran halkaan aan fadhiyaa codkayga waa inaan dalkayga iyo dadkayga ugu adeego iga fogay aad baad u mahadsantiin waa marka koowaad waxaan rabaa fariin inaan u diro qurba joogta reer Puntland horta qurba joogay meel kasta aad joogtaan ilaahay horta haydan karaamay ilaahayna haydan sharfo xaqiiqada markii wadanka Soomaaliyeed uu burburay dadka lagu badbaaday waa qurba joogta haday ahaan lahayd dagaaladii daga sokeeye oo ay hubka iyo ciidanka ay garab taagnaayeen garab iyo gaashaan u ahaayeen markii Soomaali reer walba reerka dariska urishada Allah u saaray ee la isdifaacay difaacu nafsiga lagu jiray iyaga lagu badbaaday dawladdiskii Soomaaliya iyaga lagu badbaaday qoysaska Soomaaliya markii halkaas tageen iyaga wax u soo diro lagu badbaaday kaalin weyn baad horta bulshada uga jirtaa dawladdiska iyo wax walba maanta dalka ka jirana qayb baad ka tihiin marka la leeyahay qurba joogtu markay baa loo baahay qurba joogtu waa tiir kamid ah tiirarka bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan halkan fariin uga dirayaa qurba joogta reer Puntland iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo dagaalkaas ay Puntland ku jirto ee xaq ah ee waxaas dhulkan nagu haysta ajnabiga ah muuqaalkan daawanayo baan fariin u diray marka madaxweynuhu sida qaawan buu horta u hadalkaas maxay madaxweynaha ka keenay maxay tahay baahida Puntland maanta ay qurba joog ugu baahatay waxaas oo dhan idin la wadaagay horta miisaaniyadda maamulka Puntland waa 6 milyan oo dollar bishii dagaalka ay nuusugo iyadoo miisaaniyadda Puntland 6 milyan oo dollar dagaalka maxaa maalintii ku baxay qof kasto aan ogeyn oo isla sababta oo ma taqaanay dadka qayb sida loo fahansiyaa dadka dhan si guud ah wax fahansiin dagaalka maalintii waxa ku baxaysa lacag 1 milyan iyo 500 oo dollar ah ilaa 2 milyan oo dollar sabab ay ku baxaysaa waa su'aal soo diin ana idin sharax mar qoriga AK47 ka ah halkii xabo waa 3 dollar askariga maalin dagaalka 9 xabaa la siiyo qoriga ugu yaraan tusaale ka soo qaadanaya ciidamada Puntland isticmaalayaan qoriga ugu yar waa AK47 9 xabaa la siinaya askariga oo hal maalin dagaal ah mararka qaar ka badan bay qaataan laakiin tusaalaha ugu yar 3 dollar waxa ku dhufataa 9 dollar waa 270 dollar halkii askari maalintii wuxuu isticmaalayaa 270 dollar waa halkii askari ciidanka Puntland ah baa wuxuu isticmaalayaa 270 dollar salaam kale ciidamadu ilaa 5,000 askari baa meesha joogta ka badan kaba soo qaad 900 askari ciidanka Puntland maanta dagaal gashay ku dhufo qoriga AK47 ka ah 270 dollar oo hal askari isticmaalay 900 askari ku dhufo waa 243,000 oo dollar maxaa 500,000 oo dollar ka harsan wax sintiyaada ka harsan 100 milyan 200 ka harsan 200 iyo something ka harsan $500,000 baa waxa ka harsan 200 iyo something waa qoriga AK47 ka bas qoriga AK47 ka lacagti waa inta kharashkiisa rasaasiis ku baxaysa gaar waxa ka raashinkii waxa ka dawadii waxa ka ma taqaanay shidaalkii gaar wey waa rasaastan xisaabinaya ciidanku inta hub isticmaalaya qoryaha ma taqaanay lidka diyaaradaha oo suuga iyo shilkayaasha qoryaha sabanka garabka laga rido bombada F1 taayo loo baahan yahay sniperiska
qoriga ma taqaanay daba jeexa Soomaalidu taqaana PKM-kay oo rasaasiisu halka xabad $60 waliya qayb rasaastoodu ay tahay ma ahan daba jeex laakiin qoriyaha soolanka hadda qoriga droonista lagu ridayo kale halka xabad waa $70 $60 weey droonta markii ciidanka lagu weerarayo argixisada ku weeraraysa lagu ridayo kale waa $70 kuma darin waa AK-47 waxaan xisabay dhashiika iyo iska daa qoryaha lagu dhufanayo buurta iska daa waxaas kuma darin dawladna waa shacab ogaad haddii la dhaho dawladda lagu fiirsado waa dawladda miisaaniyadeedu waa $6 milyan maalintiina $1,500,000 $2 milyan baxayso marka garab istaag dawladdeena uma baahna way u baahantahay waliba mid xaq ah way u baahantahay hadday halgamadii kala duwanaayo dadkan reer Puntland ay galeen sida halgankii SDF oo kale ahaan lahaa wixii taageeray oo ma taqaanay dadka taageeray qurba joog bay ahay maanta kaalintiinii qaad dhaqashii marbay ka yihiin dharag xaaraane dhashaaday sugtaa xaajada dowrataad waxaan anaga dhowranay dhashayadii anagayna maanta ina haysata maalintii waxaas haddii caqli jiri lahaa oo Puntland sirdoon jiri lahaa wallaahi oo billaahi oo tallahi maalintii baa laga taqalusay laakiin si ma dhicin ka shalaayi mayno waxbaynu iska dhicinaynaa kocosho waa ceeb wey waxbaynu iska dhicinaynaa hadda fallaartaas nagu tagtay nagu dhacday nabarkaas nagu dhacay laakiin si hadda waa inaan fadhiga ka kacnasaan fallaarta isaga soo fujin lahayn nimankan argixisada ah waxay iska ilaalinayaan inaan rugahooda la gaarin bay ilaalinayaan dhulka lagu dagaalamayo dhulka aad aragteen buraha oo wada qararka ah nafta ciidanku bixinayaan iska daabaan la heli karin wax kasta isticmaalayaan drones Puntland taageero caalami ah ma dagaalka kaligeed ku tahay taageero caalami ma haysato dagaalka kaligeed ku tahay marka reer Puntland nin walba wax haysto nin kasto qurba joogo war fadhiga ka kac war tolow war wax qof kasto oo Soomaaliyo fariintaas fogeeyay anigu reer Puntland baa la hadlay Soomaalida kalena waxaan leeyahay waxaan nagu haysta dhulka waad aragteen oo waxa duubka cad damiirkiina Soomaalinimo haddu ha shaqeeyo وهدي الصومالي دمير السواري واحد دول كان ينقوا هيستوى أنا من كاس دوب كعدو واحد صومالي يقوم جدا دتك أقصص كيا دجال ما يويتو بيان صومالي دريس كلا يا كيان أنت كلا واحد وذا برجع دحية شيء كمان هدي دمير صوماليات وكوجرو تاجر دجال كان وحق والله هدي عيد مدة بطلة صدف شباب وحومة داعش بكدرة داعش بكدرة دجال كان حق بكوجيهاي هدات صومالي تاي وهدي دمير جرو صومالي دمير كان الله ضيع قف حنو اللي على الله اللي مي تاسو قرب جوك تفرين تاودو كله في صدى حسابته كله في صدى ولا حسابته ما جاي كله في صدى فرين تاس جالسي عيكون سهري دولة بطلان جارهان جود جت كلها واحد بده إني نانجرنا نستدد كلهم معه قرب جوك ترير بطلان وديار أكمل أو محاج عمه إذا هيست أقول أنت إذا هيست تم حيتها قف كستودن بوكش قيستا جاليلا وإلى إسخلافان بديك إن ما تغنى هدي ماشى قال أرورس إمادة ضد إسخلافك أنا هو أغنى لقن كالسومالي ده بعد كبد يعني نقول بلعتها قدرة ماشاس أكون هلا سمايو قد يجار دولة دوش غي هجرة لكن أنا أقول حتى نشوف قربنا عستندوا أنجو العقبة ربنا ندرو مويل لما قد يجي إسخلافين لعله إلا الصومالي بأنا واحد كستاي ما كره بلسوا جاي أنت يسوي شيء يندقال كينا سول وين العقد أكون قدرة أوي أكون مدي هاوي أكون مدي ويبقى أكون ما شرعي سنة أدوم كتير زمي محمود الله دقال لي أنا لقاش كينين وين سوجان قويسان أو هو شاس ببسيسان سوي حدا كي وهذا قد يجي تأكل هذا عيدان كو وحاتين يانا وحدا ورانا كركع ماشى تأكل هذا ما تغنى أكون مدي أوي maxaa idan ka qaldan say wixii ka yii qurba joogti waa kaas annaga idin maaleen wallahi laynaa aaway taakuladii akoomadii lacag aaway lagu diri lahaa boobsi arintaas waa maanta gudaheeda la helaa akoomadaas farintaas kulul waxay ku socotaa gudiga taakulada igu qaata hadaladeeda waa iska kulul yihiin waaqicigan ogahay waxaan la dareenahay wiilka buurta ku jiro inaga saa noo soo fiirinaya bal la dareenahay iyo cadawga shisheeyo nagu soo duulay wiilkaas inaga ina soo fiirinaya bal la dareenahay marka xaaladan ogahay iyo kan dhaawacay jaban baa la dareenay igu qaata marka hadalkaygu waa kululaanayaa
arrintaas waa dowladda arrinta kale waxay ku socotaa oo qodobkayga ugu dambeeya culimada Puntland horta dhaqanka Soomaali baan kala simarnahay ma taqaanaayay salahan kale markii balaaya ka dhacda meel in la jeclaado waxa tusaale kugu filan wiil yar oo Marookaan ah wuxuu ku dhacay ceel Soomaalida miidiyaha joogtay alle hebel Abu Amaar hebel yare saasi wadadeen hebel maanta laga soo saaray ceelka 3 bari ku jiray saa wiil yar wuxuu ku dhacay ceel ku yaala Laascaanood wallahi laba qof oo isweydiisay ma jirto labada wiil waa isku xaquuq kana Soomaaliya kan maca loo bumburin way dhaqanka Soomaali baa jacaylka ummada kale jacaylka ummada kale reer Puntland kaliya malahan Soomaali oo dhan baa leh ka wada siman iyo istustusnimo culimada reer Puntland markii Falastiin ka socday Falastiin walaalahooda Carab la joogay annagu cajam baan nahay Soomaali hadaan nahay walaw qabiilada qaar ay dhahaan Carab baanu ka soo jeednay walaalahooda Carbeed baa la joogay naga hanti badan qaybtood shidaal iyo gaas haystaan hadday wax u qabanayaan iyaga u tala wixii muslimnimo inaga inooga aadan waa meesheeda wixii muslimnimo inaga inooga aadan Falastiin waa meesheeda laakiin si waxay culimada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed isa saareen waajib waxay isa saareen la yaabay Falastiiniyiintii loo hilinayay shalay Soomaalida ay caayeen shalay Soomaalida ay caayeen kuwii aynu garab ka taagay si walbaba qof xun wadan waa ku jiri karaa qayb xun hayna caydo inta walaalahayna gargaarka u baneed gaarsiinay maxaa afkaydan haysta maxaa madaqana shacabka u dhiirigelin maxaad cadawgan idin ku soo duulay hadda mise waxaad rabtaa inaan dhahdo shaki male inay laba shaab wada shaqeeyaan miyaad rabtaa inaan dhahno ma dhahayne hal laydan arko oo taakuladii iyo mataqaanay dadkii aad u shiilinayseen oo carabtii waa kuwaas guuleystay inaga waxayna haysta waa carab kale dadka ku jiheeyay oo masaajidada ka hadla oo mataqaanay gudigii taakulada culimada Puntland gudigii taakulada walaalaha Falastiin culimada Puntland hadda hal laydan arko taakuladii hadda hal laydan arko culimada Puntland ay fadhiga ka kac walaalayaal haddaad culimada yadii saxda ahayd aad tihiin oo inaan carabtaas buuraha noogu jirta la dareen ahayn ka kaca fadhiga waxba ictisaama iyo waxba al-ittixaad iyo waa maqli jirin laakiin si maanta dhulkeena la inagu haysta haddii kale culimadii suufiyada aan hawl gelinaynaa suufiyadii baan hawl gelinaynaa oo al-ittixaad la dagaalamay 92 baan hawl gelinaynaa kana adkaaday doorkiina qaata waliba culimada aan la hadlay waa culimada hantida Puntland ku leh culimada suufiya waa niman diintooda ma taqaanay siyaasadna aan soo dhixgelin ma taqaanay diimahooda ku mashquulsan Allah subhanahu wa ta'ala iska caabuda aan ku dhexmin laakiin culimada qayb ganacsatada ku jirto oo siyaasadii kaaga horeeyo ma taqaanay cadayga iibinaya meel walba taagan caana teel ah kuwaas aan la hadlaya lacagta baad ciidaydan ka qaadan jiray waa ina muumin oo carab u shaqeynaya lacagtina inta aruuriyo wallahi wuxuu u diri jiray daacish ka dagaalamaysa Afghanistan iyo bariga dhexe iyo mataqaanay iyo waqooyiga Afrika buu dir jiray ina muumin 2023 wuxuu noqday lacagtii uu ka qaaday reer Puntland wuxuu ku maalgeliyay daacish dunida yuu ka qaaday idinku idan ka qaaday culimo ah maxaa marka diidina la dagaalantay ninka saas ku curyaamiyo hantidaadii dad kale ku biilaya maxaa ku diidaado sheekh ah oo ina muumin sheekh buu sheeganaya shaydaanku la dagaalantay waxay dadku kaaga shakinayaan inaad la shaqeynaysaan oo aad isku tiimtiin ba wallahi laga shakinaya fadhiga ka kaca culimada suufiyada iyo salafiyada fariintaas u diray waliba culimada waxay haysateen lacagta haysataan oo meel walba ku dhexmilmay bay ku socotaa fariinta fadhiga ka kaca Puntland waa lagu soo duulay 92 halkay Puntland taagnayd bay taagan tahay fadhiga ka kaca oo meel walba ka jeediyo khudbadii qiiraysiinta walaalahan waa la gubay aad jirteen maanta wiilashan 110 buu dhaawac u simaraya 70 waa dhimashada ciidanka difaaca Puntland one day dagaalkaas qaraar bay ku jiraan ka kaca fadhiga argagixisadiina kulli walaalay haddana wasalligoodii ugu dambeeyay waa loo socdaa fadhiga ka kaca aan ku soo kufinaya oo fariinta ugu dambeeyay ay ku socotaa laamaha amaankiisa sirdoonka Puntland iyo ciidamada difaaca ee geesiyaasha shaqo fiican baad haysan nimankaas maanta 30 kilomitir oo go'doominay noogu jiraan waa in hadda shaqa socota marba inaan ka horno waa in cunaqabatayn adag la saaro
وحتى هذا ماشي كورنا وكوينه والله بالله تلا ماشي كل مرة مال كستو ساد هذا علاش يلان ولا جاهية مالها كمان بالله يشيء كل مالها سوين لك حلو مال كستو ساد وقصر دعيو مال محي من نقول لك على ما مركينه جودو منه حسار أي نقولينه جودو من والله رصاصنا أي سنة صدقن راشن يبينا أي سنة هلين بخت كود ماشي قلت دولة بطلان يسردين كودو وإن هي شقة أقوى هذا جاي قبنا يان أي نقطة جودو من عيال البدن حتى قعنتها لقاها جاي بيها كعب جيران ودوين متقنا راشن كي يسوق بجر ولا جحري وإن هذا اللي جودو من والله يصدق بلاد أو بلاد كده بيني سيد دجال بيك برتك وبختنا يا ها كل ما يشرب شقة أقوى هذا جاي لا ما سردين كبطلان حورانك هلا بديو بطلواني حورانك بدس وإن متقنا يشق إن لبلابه جودو من بط يبر يعر يقول لا مهمانك بطلان مركان إذا لا يهي دليل هلا تببرو أو ما تقارنا حتى دليل أنا دجالك جرانين هديته برسل دون كأهل السيو بد يبر بيسكو في دنيا حاجة سوقلية قريق سياكي فوني سمن كأمريكا لودي ودك استوى فريستو داعش وحوجسوا مري جيران أما بعض هالنقطة بري هالنقطة والله أفر بيوت كلية جودان وكلية ما بختنا يعني حتى نصدق كيلومتر بيكون جيران بطلان لا شكرا على الواجب وي دad كان iyaga frontier ku shaqeynayo waa in dhalinyarada reer Puntland kulli lagu daadiyo xeebaha waliba dadka reer bariga kulli waa in ciidan la wada qoro dhamaantood waa in xeeb loo wada qoro kulligan waa in isku daadina meel wada kasta oo sirdoon oo daacish uga soo gali karaan waa in la dhigo ciidamadaas annaga dhan aan ku yaacna meesha waayo nolosheena ku jirto annaga kaliya nolosheena ma aha Soomaali baanu dayr u nahay waayo waxa dhulkeen waa soo jeeda ninka sidaas u mintiday haduu bari dhulkaaga qabsada ma kaaga kacaya wallahi buu kaaga kacaysa wuxuu ku leeyahay dhiig baan u shubay buu leeyahay waa rug waxaan dhiig loo shubin lama helo waxaan dib loo marin lama dheefsado dib buu u maray inuu dhulkaaga hantiyo waxaas ugu soo duray waa in adigu maxaa ku diiday markii inaad naftaada biimaysid mar guliyo gobonimo leeyahay intaas aan ku soo kufanayo billahi tawfiq